السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ضمان مرتي شرفته كسو قيب كشي قف ولبا درجة المذية هي يحرك وسيدا أيام سلامية وكسو دويني مركاو الرئيسة وحنا بريو درينا ضمان قرن كوردن جودهان عيد ماذا قرن كسيدوردن قارهان عيدا كقرنك oo maanta aynu joogno xafladoodii 7 aasaaskii ciidanka qaranka waxaanu u dareynaa ammaan iyo bogaadin dhammaan dableyda saraakiil xigeenka saraakiisha iyo generaalada iyo xaasaskoodaba qaran ahaan oo mahadnaqaynaa abaalka ummadda galana waa haynaa waana u ducaynaynaa sanadkiisa in Ilaahay barwaaqo iyo horumar noo gaarsiiyo dhammaantood maanta aad ugu dheelaan maayo ciidanka qaranka taariikhaan iyo hawlo galo waayo saacadii u dambeysay intuu ma laga hadlay ilaa sheekhi quraanka akhriyay ilaa fanaarintii ilaa wasiirka aad iyo aad baa maanta la isu taagay hawlaha ciidanka qaranku qabto iyo wuxuu inaga muday waxaan soo darayaa in badan waxa la isku raacaa oo la yiraahdaa ciidanka qaranka iyo ciidamada oo dhammi abaalka qaranka oo galaan dal kasta ha ahaadeen lama gudi karo waa dhab waayo qof naftiisa horay wax loogu abaalgudo oo naf loo horo laakiin abaalkooda kolba in baa la gudaa marka maanta waxaan leedahay shacabka Soomaaliland dhammaantii meel joogaba maanta abaalka oo gasheen iyo hashii u hayseen sanadaha waxaan leeyahay in badan oo talaabooyin horla ayuu abaalkii soo celiyay abaalku ma aha lacag abaalku ma aha adduun abaalku waxa weeye waxay agarateen ee isu xil saarteen hadda ciidamadoo dhanba tihiin ee ahaa qaranka jamhuuriyadda Soomaaliland oo ammaana oo nabada sidii loo heli lahaa ayaa nafta u huraynaa dadka badan maanta qaranku dhammaantii wuxuu qaatay inuu talaabadiini qaato oo isaguna nafta huro waxaanu ku jiray maanta ku jiraa sanadkan maanta ay ka horreeyaba oo Ilaahay mahdiya Soomaaliland oo taladiini qaadatay oo khilaafkii dhamaysay oo dhammaan u midowday horumarinta iyo nabadda dalka waxa kale oo guulaba in dhammaan dowladda la saaran siyaasiyiinta gaar ahaan xisbiyada siyaasiyiintu inay u midoobeen horumarinta qaranka iyo nabadda oo ay ka saareen wax alliyo wixii xaraf iyo duurduur iyo hadal qalacanaha siyaasadda oo maanta 10 bilood oo u dambeeyay gaar ahaan iyaga oo midaysan ay danta qaranka meel soo jeedeen oo hal deeqaaf laga maqal inuu Ilaahay mahdi waxaanu ku bogaadinaynaa gaar ahaan xisbiyada mucaaradka iyo dadweynaha taageera inay u arkeen mucaaradnimada inay noqoto dal dhis waliba waxay dareenaa dulqaad ku daraan si ay uga gudubno carqalada badan iyo cadow badan oo in hortaagan dadka biloodka warqimo ku dhow xisbiyadu waxay ku wada saaxdeen in ay u midoobaan sidii dalka hawsha ay u hayaan ee ah siyaasad nabadeed wax wada dhisa isqadarin ah lagu bilaabo in loo qorsheeyo waqtigii lagu gali lahaa doorashooyinka qaranka ee isku sidka dawladnimadu waxay ka dhisantaa waa golayaasha sharci dejinta dadka la dooranayo hadday noqon waayaan dadka dooranaya qaar soo caloolsan xisbiyada soo caloolsan qarannimadu u muuqato meel wax ka wada arkaya dadweyne u arka qofka ay dooranayaan oo dalka wax u tari karo haddii aan labadaa la helin wixii aad beertay wanaagsanaan maayo oo dadka hadhow ta doorataa ma wanaagsanayo maanta waxaynu marakanahay in xisbiyadii iyo golayaashii sharci dejinta oo kuwii laga saarayay golaha ee maanta xilka dhigal lahaa iyaga oo in badan fadhiyay inay maanta arrintaas isku raaceen medalkeedina maanta uu joogo waxaan idinku bishaareynayaa qaranka Soomaaliland mid dibad joogiyo mid wada joogaba inay guurtii maanta go'aamiyeen in doorashada la qabto waqtigii uu soo jeediyay guddiga doorashooyinku 31 May ومهد لهي
waxaynu ku bogaadinaynaa xubnaha golaha guurtida iyo guddoomiyaashoodu inay tallaabadaa wanaagsan maanta qaadeen oo ay tahay bedela xeerkii ay go'aamiseen oo soo dedejiya wakhtigii maadaama ay xisbiyadii iyo qarankii iyo xukuumaddii iyo guddii doorashood beer yihiin waa waxa ilaahay lagu mahadiyaa waa arkaysaan dowladda harreen naga xigay carab meeshaynu ku noolnahay waa arkaysaan innaga labanama ictiraafsana waa arkaysaan waa laynoo dardaari wariyaa oo dhaqaalo ma haystaan baa la ydhahdaa waa aragtaan oo waxaa la ydhahdaa waa dad isku qayriyo oo heshiis maha way kala qoban yihiin cadowga somalilan maanta waxaanu dhagaha u ridaynaa inay somalilan midowday oo hawshii aanu soo bilownay ee midnimada iyo horumarka iyo dimuqraadiyadda aynu soo wadnay gunaanadkeedii iyo kubaddii goolkii u dambeeyey ay gurtu ku laagtay oo shabaqa ku hubsatay oo arkaysa walaalayaal soomaaliya dadda waa isku xignaa waa soomaali waa muslim dhibaatada gaadhaa wayna damqaysaa waa u ducaynaa wax kale waa qarree wax kaloo tari karnaa maanta annaga teelna rafan haddaynu itaal weyn hayno oo iyaguna ay garan lahaayeen waxaynu u nahay oo halkay ka fikirayaan si ka duwan u fikri lahaayeen dadkooda iyo dowladdoodu maanta tabaaladooda iyo waxtarkooda dadka ugu dhawa qaban lahaa baynu nahay waxaan aad iyo aad uga xurnahay maalin waddanka dhimanaya ee dhiiggooda daadanayo ee muslimka ah ee soomaalida eenu hebel hebeloodu garayno oo ugu dambeeyeen kuwii shalay hotel fikir lagu laayay oo ugu dambeeyay generaal galaan oo shakhsiyan aad iyo aad u aqaanay oo oday Soomaaliyeed oo waliba qadiyada Soomaaliya dadka xogaalka u ah waxay ku fadhiyaan garanaya ahaa aad iyo aad u tacsiiraya qoyskiisa iyo dadkiisa iyo inta kala taqaanada walaalayaal maanta waxaan leenahay oo Ilaahay nagu soo beegay oo Ilaahay uga mahadnaqnaa iyada oo dadka oo dhame inta midna aynu soo qabsanaa hawsha ciidina dawlad iyo jibcid quruba ka dhaxaysa midna aanay uranayn anaga ku taageeray haday dhaqaale tahay haday dibashiise beela tahay haday xisaab siyaasi heshiise tahay haday golayaashii oo iyagu sharciyadiisa u sameeyay tahay waxa Ilaahay lagu mahadiyaa oo madar ugu mahadnaqaynaa oo kayari kayma loogu mahadnaqayaa sheekh iyo shariif wiil iyo gabadh odayo dhalinyaro iyo shaqooyinka kala duwanba in ay ummadii Soomaaliyeed maanta Ilaahay tallaabada waafajiyay ciidamada qarankana waxa uu guura waxa naftiina u hurtay hadaa ciidanka qaranka tiin hadaa police tihiin hadaa sirdoon tihiin hadaa ciidamada badda tihiin hadaa dabdabiska habeen walba dadka sulgiga tihiin hadaa immigration Soomaaliyeed tihiin hadii kuwa criminalska iyo maxaabiista dhaqan wanaagga ku soo celiya tihiin idinkana maanta waxaad ku gamaysaan in dadkiina idinla qaado tallaabadii oo maanta ummadda halka amaraysa doorashooyinka waa inay wax noo taraan inay wax leeyaan maaha doorashooyinka waa inaynu horumar ka qaadnaa doorashooyinku maaha inaynu ku colowno oo marka wax la dooranayana aynu xanaf abuurno waxaynu nidhi aynu dooranno oo degmo walayba soo dooro dadka qaranka ku matalaya degmooyinkaynu gaarsiino gobollada oo dhaafina 3 degmaa laga soo dooranaya waxaa la soo dooran doonaa 82 mudane oo fartoodu noqon doonta sharci aad ku dhaqanto xilkaas maanta ayuu saaray wuxuu saaray degmo wariba inay qaranka u keento nin wuxuu qof wuxuu tara rag iyo dumarba iyaguna ay keenaan qof xil gudan kara maanta xisbi idinma yeerinayo xukuumad idinma yeerinayso ciideedu kuma qasbayso qof wal oo talada wax ka galayo oo soo xildhibaan soo xurayo aakhiro waxa la weydiin doonaa مسؤولية القاضي القرن كون كان سعيد هجام الله إن ضاعت كتوقف كاسي في آخر وقرن كمدو حتى ريويه آخر كسارن تهاي دبجاسه هذا القرن كأصوح شو ميلاد وقت هاي إنه هديمه وكانيو أما أنا حركة كبيحكرين قفر واحد دورنا يا الله لمن والقضاء أديبسه وإن نقطة قفك دورنا هذا وتقارن كالشرع وده تريو يا آيه وكترين آيو يا وحى دورنا يا إن نقطة مد إفكين يا آخرين لو نكسر ومدنا وترك هلا وهوش قام كرا يا إنه عنان مانتا يا عنان دون تقف ورو وما تبلونه
haddii aad soo saarto qof aan xilkaa ka bixi karayn yaad canaanan doontaa aakhire maxaad kaga jawaabi doontaa ummadda goorno maxaad ugu jawaabi doontaa taasi waa xilka maanta saaran degmooyinka cidda ka soo xuraysa dadka iyo qofka dooranaya waxaa loo baahan yahay inay qabtaan dadka xulaya qoladii iminka halkan riwaayadda masaajidada dhigaysa waxay idhahdeen dooramayna waxna doonaya nin meeshaa iska joogaan u yeelina war dee waa dhaqa wanaagsan buu hebel wada xilka noo qaban karaya kaala noo qabo iyo iga dah lixdankii bay noogu dambeysay foodka intaa waxaan leeyahay dadka maanta soo xoraya iyo dadka wax dooranaya mas-uuliyiinta xisbiyada iyo kaadirkooda iyo ragga kaambeynka galaya ee doorashada u tartamaya anigu waxaan qabaa maanta inay doorashada iskaba dhan tahay 90% kaambeynka u dheey waayo waxaynu geynay doorashadii degmooyinka halkii u hooseysay degmo waliba cidday soo xushay ka fiirtay keentay wax la isu eriyada iyo wax la isu xigtaa ma taalo degmooyinkii baa laga soo codaynaya gobollada waa la yaqaana waxaan leeyahay xisbiyada iyo dadka mas-uuliyadda haya waxayna saaran marka ay doorashadu soo gabagaboobayso dabcan maanta waxaa tartamaya 991 qof baa tartamaya waxaa dhici doona 2 meelood marka 3 meelood qabiil laba hadhaya waa dabcan waa bini'aadmiga mas-uuliyadda xisbiyada xukuumadda waxgaradka hadduu madaxdhaqameed yahay hadduu sheekh yahay hadduu ganacsada waxayna saaran inaynu doorashada ku ilaalino nabadgelyo iyo amni cadowgeenu hadduu tii hore ku quustay iminka soo waday oo taa maanta ay Portugal dambayso cadowgeenu wuxuu ku dadaalayaa doorashada natiijadeeda inuu khilaaf adag ka abuuro walaalayaal dhibaatada ay leedahay doorashada markay dhammaatay dhibaatooyin ka soo baxa qoladii Mareykanka adduunka ugu xoog weynayd lahayd 200 sano doorasho wada wixii ka dhacay waa arkaysay inay ku dhinteen oo gurigooda loogu dhacay oo ay ku khalkhaleen qoladii Mareykanka lahayd adduunka naga ugu xoog weyn waa arkaysay oo awood oo sheeganay inagu awoodana hanaawata iimaanka iyo ilaahay iskaashigiisa iyo ummadeena raamsan oo wanaag jecel inaga xoogeenu waa ka qof walba shaqo kasta hay ama geel raac ama badka kalumayso ama kuuri ahaw ama professor jaamacadooda ahaw ama taajir milyaneer lacag haysta ahaw waa inaad noqotaa samawada booliis ah oo amniga ilaaliya waa inaad noqotaa xaakim garqaadano hebelod qaldantay joog waa inaad noqotaa nin dhimbiisha dabka markay doosho qabto halkeeda ku qabto waxayna ugu haray haddaynu Soomaaliland nahay inaynu doorashooyinka inagoo wada jira oo cadawgeenu badan yahay oo dhaqaalaheenu badan hayn aynu ku dhamayno nabadgeliyo kii soo baxaba waa inankeeni kii maadaaba waa inankeeni waxay la matoohayn inama kubadooda ciyaaray oo garoonka baxay garabkaas qabsado waxaan ku adkeenayaa intaas aynu ugu hadhay anagoo haddaanu xisbiyada nahay go-aan baanu gaadhnay waxaanu samaysanaynaa xeer la yidhaha xeerka anshax waxaanu qori doonaa ilaa ay dhammaato sida la yeelaysa loo kala baxay anaga hoggaamintaasana saaran idina fulintaadi saaran haddaad dadweynaha tihiin da' kastoo tihiin iyo qof kastoo tihiin taa intaasaa kaga hadhayaa waxaan ka hadlayaa qodobka maanta adduunyada Somaliland oonay caalamka itiraafsanayn Somaliland oonay dowladda toos u xusin Somaliland oo ilaahay aaminsan isku tashatay dhibaatooyinka jira ee adduunka maanta maraya ilaahay uu la garab maray xanuunka covid oo laga qayliyay ilaahay saf maray khafiif inooga dhigay abaariya ay xabaa jiray wari waanu ka ladanahay inkastoo jiilaalkii laba bilood inooga hadhay waa fududahay jiilaalkeenu waa ilaahay mahadi khilaafaadka siyaasiga ah iyo dagaalada iyo colaadaha geeska Afrika ka aloosan ee inagu xeeranna ilaahay uu inaga nabadgeliyay waxaanu u baahanahay inaynu qaadano aqliga ah yaa wax la qabsada dadweynaha Somaliland waxaan leeyahay aynu ka baxno waa la caawinayaa iyo cid baan qaylo u dirsanayaa iyo na soo gaaray ereyga la yiraahdaa wuxuu noo horseedayaa goonnimo iyo hanyari
يا آمن إننا إلهي آمن واحد مقلة يسوي واحد صار واحد ويتسنى هذا عالم كان دور دينا لسوقاره إلههم بين سوقاره كره ورجت بوين نوري أبارك هذا بين سومر تشري لبعتوي كبض من سومر رجع والدين واحد وكجب يحكي رئيس كرسوانات إياه النجا أو أنت إنه كل على بورك كك على إسكت شفرون قطنا هو بس يعرف له ولا ليال أبارينا عايش أفر سنة كهر دد كني قبتها عن هورسي كحشوت شري كفان شري هدو عيرو بحوك ستة شري ماله مرة ده حين شري إسقوا قبضنا إياه أضيقوا إياه لقيا أبا إن على الله شوح ونكحشوت شري وقتنا غير كمرتيان إنه نشري ورنك هاي شيء سك والله شقوي كيو نشري ما توح مرة يا قفك إسقوا أو حيستا إنه بريضة بديو غير بديو محنا نوسع محايد وإحنا نسيوه والد شيدتك بعض ميلو رسبنانا $8 بالوالد سينية برسيد زور قويس كان سي حاجة وسعرية همد دمبوي حرقوا نقدان ما هي تعب وحكرشة ما هي ودقن جور وبربر قويس سواء لا سامع هاتشري كم الناس وكرمك سواء عاك أنا وجد هذه وأنا كل قبل العز والبا هذا أبى الرجول على هاي بكرة إنه أنسكت الشر هل يسحوا رجوي واجهك وذو حساري حوشها إلى قيب قلان ضد كان وتذكر عيسو وضدك إلى هاي العكس السيء تجارة بيزنس مانكا وايو تجارة أنا قال كود سكده ضمانته ريتشنا دم بك صار كرتا فقري وأنت قالت سير إن كان بضم حكرة ما هاي العكس بحي سكده أي كل هذا دينتو كلية أيها قبل لندن كسر كرتا وح أي نوب ويسريان هيدا نصريه هل كانوا وحلا يكونوا قولوا ضد كيلو إيمان كي الرهين يقب كني إننا نفرنشيا يمد عربيتنا مدنا وحوا وقونين أي مسوع لنا أو عقل يصدق كان سنة ضمبا إن جوبتاي أبر يلا إنا نريد النور إنا وحق سكرين هلا قبل إلى حين ينا كوجفين وايو وحنا هيدلك الله خباه أنت معاه هاي أدوك السيرسي رو يحور بترول الله بعيرش إنه بعين هاو قرار قرا أو ذا أكتهين أو يدقني مدينة هي إسكاشرة أنتن هاي سائر النقول أنا صباح وحنهمنا إن الدمانتك ورسان إن ذهب عن القديم بناك لجاه الله بذهب بوجره هدي أنا لا هالقول إنه مو أنا جالس كأفرق لنا قارس وشيله oo maxaynu u qodan lahayn oo maxaynu u dhaqaajin lahayn doqonimadeen iyo kala qobnaanteena inaan isku aamino qore ku xirantay waxaan leenahay badda ugu dheer oo waxaan doonno kala soo bixi karo madaxda hadduu xisbi yahay iyo hadduu jana yahay iyo hadduu wasiir yahay hadduu madaxweyne leeyahay iyo hadduu sheekh yahay waxa laga rabaa inuu dadka waxa toosan iyo wadada u sheego laakiin hadday qaadan waayaan madaxdu eedda mala dadweynaha leh annagu sidoo ilaahay faray ee iska argaynaanu idin sheegaynaa oo aan war hal qaato haddii diidaan idinka halkaas dhigay waxaan ku soo gabagabeynayaa maanta Soomaaliland waxay joogtaa farxad laba arrimood taariikheedu maanta goobta ugu dambaal degnay mid waa sharad guuleed ciidamada qaranka waajibkooda gutay oo dalkii nabadiisa xasiliyay oo qarankii magaciisa sharaf u yeelay mid waa golayaashii sharci dejinta iyo xisbiyadii qaranka iyo guddiga doorashada iyo dadweynaha oo dhan oo markii u horeysay doorashadii ku heshiyay in hore loo soo dhigo oo iyagoo isku duuban dhammaantood maanta ay guurtiina u saxday sharciga u dambeeyay lagu leeyahay doorashada 2030 ilaahay waxa ka rajeenayay noqoto doorasho khayr leh ilaahay waxa ka rajeenayay nabad kaga baxano ilaahay waxa ka rajeenayay xanaf iyo cay iyo sijiid iyo foorxba aan yeelay ilaahay waxa ka rajeenayay dadka faraya inaan siday ahaan jirtay doorashooyinka hore go'aan wax ka bedelo dhaqaale la baabinayo oo qaad malaayiin lagu cunaayo muxuu tarayaa inaga u baahan kiibka u baahan waxaan oo dhan waxaan ku dhamaynaa petrol campaign qof waliba gaaro ereeya wala soo duqeynaya shidaalka iyo dayactirka cid baa qaatay loo gudbinaa wala lacag naga baxda wax kale inoo qaban lahayn hiftanka iyo iscayga walaaltinimo inagoo wada walaalaa oo isu seediya oo wada xidoor isbacay karin bar iscay weerar joojina ilaahay doorashada inagu mid khayr qabta aynu diyaar garowno dhammaanteen wassalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh